السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta la wadaagi doonaa 10 dowladood oo haddii aad wax ku baratid ku damaanad qaadaya dalkaas inaad sii joogtid. waxaan filayaa in arrinkani ay si gaar ah muhiim ugu tahay ardada Soomaaliyeed ee la daala dhacay run ahaantii marka ay dalka wax ku bartaan Soomaaliya weeye in ay dhacdo inaysan shaqo helin. haddaba 10 dowladood ee aan la wadaagi doono waxay muhiim u tahay dadka noocaas ahi in ay isla marka ay waxbarashada dhameeyaan inay laba mid heli doonaan. midda koowaad inay fursad u heli doonaan dalkaas inay ka shaqaystaan oo iyagu wixii ay yaqaaneen ay shaqaale ku noqdaan isla markaana mushahar ay ku helaan. ama haddii qofku yahay qof innovation leh, hal abuur leh, fikrado leh, mashaariic dalkaas uu ka bilaabi doono, taasoo meesha ka saaraysa sida dalka aan ku naqaanay caalamka marka uu ardaygu dalkaas wax ku barto isla markaana dalkaas uu soo dhalan in laga soo celiyo. kulanti wanaagsan, magacaygu waa Saadiq Sheekh Maxamed. haddii booqashadaadii koowaad ee bartan ay tahay fadlan nagu soo biir. haddaba inta aynan 10 dowladood aynan u gudbin ayaa heerka shaqo la'aan ee ardayda jaamacadaha ka baxa gaar ahaan dowladaha Carabtu ay gaadhay 28% iyadoo la sheegay shaqo abuurka dowladaha Carabtu inay u baahan yihiin 30 sano ee soo socota in ka badan 60 milyan oo shaqo, taasoo ku muujinaysa heerka shaqo la'aanta ee run ahaantii la kowsatay ama ku habsatay ardada Carabeed oo marka Afrika aan ka reebno. hase yeeshee taa beddelkeeda ayaa celceliska shaqaalaysiinta ardayda cusub ee jaamacadaha dowladaha reer Yurub ka baxa ee da'doodu ay u dhaxayso 20 sano ilaa 40 sano ayaa tiradoodu ay dhaafaysaa 83.5% marka loo eego xafiiska tirakoobka midowga Yurub warbixin uu soo saaray sanadkii 2023. dhinaca kale tirada la diiwaan geliyay ee ardayda dhamaysatay tacliinta sare ee dalalka midowga Yurub ayaa ah kuwo celcelis ahaan kuwa dunida ugu badan ee ardayda la shaqaaleysiyo. bimacnaa ardayda markii ay jaamacadaha ka baxaan ardayda dunida ugu badan ee la shaqaaleysiyo waa ardayda dowladaha reer Yurub u dhashay, iyagoo guud ahaan ardaydaasi noqday dunida kuwa looga ilaalin badan yahay inay shaqo la'aantu ku dhacdo marka loo eego dadka iyaga ahaan mustawahooda tacliimiga ama heerkooda waxbarasho ka hooseeya. halka isla sanadkaas ardayda cusub ee waxbarashada dhamaysatay ee la shaqaaleysiiyey ma aha kuwa shaqo la'aanta ay ku dhacday, ma aha, waa kuwa shaqada la geeyay si rasmi ah loo geeyay in tiradoodu ay dhaaftay 90%. gaar ahaan waliba dowladahan soo socda ee kala ah Ireland, Australia, Belgium, Sweden, Slovakia, Poland, Jarmalka, Latvia, Bulgaria, Hungary, Holland, Malta iyo Estonia. dowladahaasi ardada dalkooda ee waxbaratay ayaa isla markii waxbarashada ay dhameeyeen ayaa 90% ay gaadhay tirada arday ee la shaqaaleysiiyay. taana waxaad ku fahmaysaa heerka ay gaadhay sida ardadaas ay run ahaantii u yihiin kuwa dalka markii ay waxbarteen dib ugu soo celiyay isla markaana iyagoo noloshoodii maareeyay. haddaba kala duwanaanshiyahaas walaalayaal aan soo xusnay awgood ayaa arday badan oo dalalka Afrika iyo Carabaha ka soo jeeda ay u doonayaan inay waxbarashadooda ku dhamaystaan dowladaha siinaya fursado shaqo oo dhab ah si ay dalkaas ugu noolaadaan marka ay waxbarashadooda dhameeyaan kadib. sidaa darteed ayaa waxaan rabaa inaan 10 dowladood idinku soo bandhigo si ardayda Soomaaliyeed ay ka guuxi jirtay inay dalalkaas aadaan ama ku fikiri jiray inay raadiyaan dal ay wax ku bartaan kadibna ay sii joogaan ay uga faa'iideystaan. haddaba dowladda ugu horeysa waxay tahay waa dalka Canada. muddada joogitaanka ee dalka Canada waa 3 sano, balse shardiga barnaamijka waxbarasho ee la rabo inuu dhigto qofkaasi si uu u sii joogo dalkaas ayaa waxay tahay waqtiga ugu yar 8 bilood. 8 bilood meesha aad wax ku baranaysid jaamacad ha ahaato ama ha ahaato macahad ha ahaado ama ha ahaado goob kale, waa inay tahay goobta waxbarasho mid dalka Canada uu aqoonsan yahay. taasi waa maxay? waa habka dalka Canada ay kugu suurtagelayso inaad sii joogtid waa haddii aad tahay qof arday wax bartay. markaad eegtid waxaad moodaa arrin aad u fudud inuu yahay. waa 8 bilood. taasi waa maxay? waa dhinaca fursadda ee waxbarasho ee haddii aad wax baratid dalka Canada aad ku joogi kartid. dhinaca kale markaan eegno fursadaha shaqo ee dalka Canada laga helo ayaa wuxuu yahay in si fudud ay u furan tahay qofka dalka Canada jooga inuu fursad u helo jinsiyad uu doona ha yeesho. midda labaad waxay tahay qofka waxaa lagu doortaa markii la shaqaaleysiinayo hadba qofku waxa uu yaqaano
iyadoo taasi ay ku lamaansan tahay barnaamijyo ku dhiirigelinaya dadka soo galootiga ahi ee xirfadaha leh inay dalka yimaadaan. taa waxaa meesha ay ka saaraysaa ardayda ama dhalinyarada Soomaaliyeed inay dhoofaan ay madaxa martay in haddii dalalka kale aad rabtid in laga aqbalo ama aad joogtid waxaa laga rabaa ay tahay inaad tahay qof xirfad leh ama aqoon leh. waayo dalkan wuxuu ka fikirayaa qofkan aniga dalkayga imanaya ama joogaya muxuu dalkayga kusoo biirinaya. taasi waxay meesha ka saaraysaa marka qof dheeraad dalka ku ah idina uma baahna waxaa doontid ahaw. midda saddexaad waxay tahay dalka Canada wuxuu gaar ku yahay ayaa waxaa ka mid ah inaad codsan karto inaad dalka joogto adigoo sheeganaya xirfad shaqo laakiin dalka wax ku ool ku ah. halka waxaan uga baxayaa dalka Canada. dalka labaad wuxuu yahay ee 10 dowladood ka mid ah waa dalka Australia. waa taqaanaan lidinka sheekayn mayo balse muddada joogitaankeedu waa 2 sano ilaa 3 sano. haddaba waxyaalaha xaqa uu yeelanayo ardayga dalkaas wax ku barta ma aha qof iska tagayo iska joogo tahriiba ama kama hadlayo qof kama hadlayo ee qaxooti qortay ayankan waxyaalaha kama hadlayo. waxaan ka hadlayaa qofka dalkaas wax ku bartay sifadu doono ha yeesho. marka wuxuu xaq u yeelanayaa qofkaasi marka koobaad inuu dalka ku noolaado inuu muxuu ahay ka shaqeeyo dalkaas markii uu wax barto isagoo sii maraya barnaamijka la magac baxay course of work after studying. waa barnaamij la isla yaqaano oo ah Soomaali ahaan wadiiqada shaqo ee waxbarashada kadib ayuu qofku u marayaa nidaamkaas u marayaa kadibna maxaa u suurtagelaysa inuu shaqo helo shaqadaasina ay u suurtagelaysa dalka inuu sii joogo. taasi waa midda labaad muddada ay tahay qofku uu dalkaas joogo way kala duwan tahay. waxayna ku kala duwan tahay marka loo eego heerka waxbarasho ee la fili karo inuu qofku heli karo marka uu waxbarashada dhameeyo kadib. iyadoo fiisaha dalka Australia qiimihiisu uu yahay lacag dhan $2,235. dhinacaasi waa fursadii aad dalka Australia ku joogi lahayd. fursadaha ka banaan dalka Australia markaan ka hadalo marka koowaad waa kuwa xoogan sida kuwa la xiriira caafimaadka, engineerinka iyo teknolojiyadda. haddii saddexdaas aad ku fiican tahay waa orod inaad shaqo ka hesho dalka Australia. iyagoo jaamacaduhu sidoo kale ay qeyb ay ka qaataan taageerida ardayda bimacnaa markii ardaygu uu dalka Australia wax ku barto ardaydii jaamacadii baa waxay ku taageeraysaa ama ay garab ugu siinaysaa ardaygii sidii uu shaqo ku heli lahaa. taasoo ah way ku leeyihiin in shaqooyinka lagu soo bandhigo baraha bulshada. waa ogtihiin shaqooyinka qaar baraha bulshada lagu soo bandhigaa laakiin inagu keer ma siino. iyo sidoo kale baraha lagu yaqaano in shaqooyinka lagu soo xayeysiiyo. taasi waa fursadaha shaqo ee dalka Australia qofku uu ka heli karo iyo habka uu heli karo. waxaa kaloo fudud in gobolada dalka Australia weeye qofku uu kala goosho waxa la yiraahdo almuwaasalaad ama transportationka ee dalka gudihiisa isu gooshitaankeedu waa mid fudud taasoo ku suurtagelinaysa inaad magaalooyin kala duwan ka shaqaysato. taana waxaan uga baxayaa dalka Australia waana dalka labaad. dalka saddexaad wuxuu yahay 10 dowladood ka mid ah waa dalka New Zealand. muddada joogitaanka dalka New Zealand waa 3 sano. fursadaha marka aad ka heli kartid ee dalkaas ku keeni kara inaad sii joogtid ayaa waxay tahay inaad gudbisato fiisaha shaqo waxbarashada kadib. markii waxbarashadaas aad dhameynayso ayaa waxaa laga rabaa inaad gudbisato inaad hesho fiiso aad ku sahlaya inaad dalka ku sii joogto. taasna ay tahay inaad tahay qof shaqaynaya. haddaba shardiga laga rabo maxay tahay taa ku xiran waxay tahay inaad codsiga gudbisato inta lagu jiro 12 bilood ee ugu dambeeya ee fiisaha dalku joog ee ardaynimo. bimacnaa maadaama sifo sharci ah dalka aad ku joogtay oo ardaynimo ah ma aha wax kale waxaa laga rabaa fiisaha markii uu 1 sano ka dhiman yahay dhicitaankiisu inaad gudbisato fiisaha shaqo ee dalka aad ku sii joogi lahayd. iyadoo muddada lagu ogolaanayo inaad New Zealand sii joogto ay xadidayso marba waxa aad ku takhasustay. bimacnaa jaamacadaas aad ka baxday faculty-ga aad ka dhigatay ayaa waxay ku keenaysaa ama ay horseed u noqonaysaa ama ay xadidaysaa waqtiga xaqa aad u yeelanaysid ama lagu ogolaanayo ee dalka New Zealand aad sii joogaysid. taasi marka waxay ku iftiiminaysaa inaad faculty-yada kuu sahlaya muddo dheer inaad dalkaas sii joogto inaad marka hore sii doorato haddii fursadda waxbarasho ee dalka New Zealand aad hesho ama iska bixi ama scholarship ku helo waxa doonto aad ku heshid. iyadoo fiisaha New Zealand uu yahay adduun lacageed oo dhan $1,670
taasi waa fursadihii muxuu ahay guud ee dalkaas aad ku joogi lahayd. dhinaca kale haddaba maxay yihiin fursadaha ka bannaan ee shaqo ee dalka New Zealand? ta koowaad horta waxaa weeye dhinaca waxbarashada. haddii jaamacad aad ka baxdid ama institution la aqoonsan yahay dalka New Zealand ku yaala, haddii aad ka baxdid, waxa koowaad ee si fudud aad ku helisid waxay tahay qaybta waxbarashada inaad ka shaqayn karto. midda labaadna waxay tahay kalkaalisanimada. midda saddexaadna waxaa weeye xirfadaha gacanta. waa bad xirfad gacmeed haddaad leedahay orod baad ku helaysaa. taasina waa qodobka saddexaad. sidoo kale waxaa fudud soo gelitaanka dalka New Zealand, ayna sahlan tahay inaad hesho sidoo kale fiisaheeda dalku gal, adoo fiisaha markii aad timaadid aad u bedelan kartid mid muddo dheer aad kusii joogi kartid. halkana waxaan uga baxayaa dalkii saddexaad ee New Zealand. dalka afraad waa maxay? waa dalka Ingiriiska. waa taqaanaan muddada joogitaanka ee dalka Ingiriisku waa 2 sano, iyadoo 3 sano ay tahay dadka haysta shahaadada PhD-da. fursadaha ka bannaan maxay tahay dalka Ingiriiska ee qofka ardayga ahi uu ku joogi karo? waxaan ku celcelinayaa ereyga arday, waana waxa aan rabno inaan fahansiino qofka rabo fursadda waxbarasho ee dalkaas ka helay fursadaha dahabiga ah ee uu heli karo. waxaa suurtagal u ah ardayga dalkaas wax ku barta inay helaan fiisaha u gaarka ah ee dadka jaamacadaha dhameeya, taasoo fursad kuu siinaysa sii joogitaanka dalka inaad ka shaqaysato marka waxbarashadaadu ay ku dhammaato kadib. hase yeeshee shardiga lagaa rabo ayaa wuxuu yahay codsiga fiisahaas aad dalka ku sii joogayso inaad codsato ka hor inta uusan kaa dhicin fiisaha ardaynimo. waxaa kaloo lagu ogol yahay sifada sharci aad hesho inaad qoyskiinana keensato. waxaa kaloo lagu ogol yahay dalka Ingiriiska inaad fiisaha u bedelan karto. waa fiisahaagii fiisa waqti dheer kuu sii jiri kara, kaasoo ah fiisaha xirfadeed ama skilled worker visa waxa loo yaqaano. taasi waxay meesha idinku muujinaysaa in dalka Ingiriiska dhowr fursad aad ka heli kartid. kow, sifada sharciyada dalka aad ku joogtid ee ardaynimo inaad horta qoyskiina keeni karto. midda labaadna in fiisahaagii ku meel gaarka ahaa ee temporary-ga ahaa inaad u bedelan karto fiisaha loo maro barnaamijka la yiraahdo skilled worker visa, inaad ku bedelan kartid, kaasoo kuu sahlaya inaad waqtigii aad joogi lahayd waqti ka dheer aad joogtid. taasi waa fursadaha aad dalka ku joogi kartid. fursadaha shaqo ee dalka Ingiriiska ka bannaan maxay yihiin marka? fursadaha ugu badan ee dalka Ingiriiska ee shaqooyin ee laga helaya waxay tahay walaalayaal guud ahaan waa dhinaca caafimaadka. midda labaad waxay tahay xirfadaha la xiriira kalkaalisanimada. midda saddexaadna waxay tahay adeegyada lacagaha, forex ha ahaato, bitcoin ha ahaato, waxyaalihii kale garanaysaan ha ahaato. haddii aad xirfadahaas taqaanid, iyaduna waa maxay? waa xirfadaha sida fudud aad uga shaqada ugu heli karto. halkana waxaan uga baxayaa dalka Ingiriiska. dalka shanaad ee 10 dowladood ka mid ah waa dalka Finland. dalka Finland muddada joogitaankeedu waa 2 sano. haddaba fursadaha ku yaala dalka Finland waxaa kow ka ah wuxuu dalkani kuu siinayaa ama u siiya ardayda dawliga ah ee jaamacadaheeda ka baxa ama dhammeeya ogolaanshiyaha joogitaanka si ay shaqo u raadsadaan ama ay mashaariic u bilaabaan. taasi maxay ku iftiiminaysaa? waxay ku iftiiminaysaa haddii aad shaqaysan karto, fursaddii aad dalkaas uga shaqaysan lahayd waa bannaanka. midda labaad waxay tahay haddii qof hal abuur leh aad tahay oo fikrad shaqaynaysa leh aad tahay, mashaariic ayaa dalka ka bilaabi karta adoo helaya shirkadihii ama hay-adihii ku maalgelin lahaa. haddaba fursadahaasi waxaa shardi u ah kow, inaad dalkaas jaamacad ku baratay. waa inaad dalkaas jaamacad dalkaas ku taala aad wax ku baratay aadna dhammaysay. haddaba shardiga ardaygaas looga baahan yahay waa maxay ee dalka wax ku bartay? in qofka codsigaas soo gudbisanaya inuu dhameeyay heerkii jaamacadeed ama baaritaan aqooneed. haddii labadaas aad dhammaysid oo lagaa hubsado waad helaysaa shaqadii. sidoo kale fursadaha dalka Finland ka bannaan ayaa waxay tahay waa kuwa horta kala siman dalalkii aan horey usoo xusnay. hase yeeshee arrinka dalkan Finland gaarka u ah ayaa wuxuu yahay in ay taageerto mashaariicda kobcaysa iyo damaanad qaadka nidaamka bulsho ee loo wada dhan yahay. bimacnaa dalka haddii aad joogtid, haddiiba aad hal abuur leedahay, haddiiba qof shaqaysan kara aad tahay, waxaa weeye wax isir sooc ah ama nacayb ah ama dal hebel baad u dhalato lagu soocayo ma jirto. halkana waxaan uga gudbayaa dalka shanaad. dalka lixaad wuxuu yahay waa dalka Ireland. muddada dalka Ireland joogitaankeeda ahi waa 2 sano.
fursadaha marka aad dalka ku joogi karto waxay tahay walaalayaal waxay dalkani Ireland ay siinaysaa ardayda jaamacadaheeda ka baxa fiisa dalka lagu sii joogi karo iyadoo u sii maraysa barnaamijka la magac baxay level 4 graduate program ama waxa la yiraahdo al-kharijina min mustawa ar-rabi' kaaso ardayga u suurtagelinaya in ardayga dawliga ah ama caalamka kale ka yimid in uu sii joogo dalkaas muddo 2 sano ah kadib marka ay dhameeyaan waxbarashadii dalkaas ay ku baranayeen ama jaamacadihii dalkaas ay dhiganayeen sidoo kale waxay leeyihiin ardayda dalkaas wax ku dhameeya xuquuq ah inay helaan xuquuq dhameystiran iyagoo ka faa'iideysanaya difaaca sharciyadeed iyo sinaanta mushaharka dalkan Ireland xaq ku siinaya in dalkaas aad joogtid oo hadii waxa dulmi ah lagu geyso dalkiiba ku difaacaya mid labaadna waa maxay mushaharkaaga lagu siin doona hadii dalkaas shaqo aad ka heshid ma noqon doona mid la dhaho dalal kale uu ka yimid ama Afrika uu ka yimid ama Soomaaliya uu ka yimid mushahar hoose hala siiyo waa maxay shaqadaas magaceeda ayaa waxa lagu siinayaa shaqooyinka noocaas ah mushaharka qofku xaq u leeyahay in lagu siiyo marka ama luqadda ku adkaato oo Ingiriiska daciif ha ahaado ama dhaqanka dalkaas iyada aqoonin ama aad noqotid qof isla markaas jaamacad dhameeyay hadiiba aad shaqo hesho mushaharkaaga ma noqon doono mid lagu dilmiyo halkaana waxaan uga baxayaa dalka lixaad ee kamid ah 10 dawladood ee ardada wax ku barata ay xaq u yeelanayaan in dalka ay sii joogan ama ay ka shaqeystaan dalka toddobaad wuxuu yahay 10 dawladood kamid ah waa dalka Jarmalka muddada joogitaanka ee dalka Jarmalku waa 18 bilood fursadaha hadaba aad ku joogi kartid waxay tahay walaalayaal waxa suurtagal ku ah ardayga caalamka kale ka yimid ee wax ku barta dalka Jarmalka inay u gudbistaan codsiga u ogolaanaya ku sii nagaanshiyaha dalkaas iyagoo shaqo doon ah bimacna marka aad waxbarashada ku dhameysato dalka Jarmalka waxaad gudbisanaysaa codsiga ah in dalkaas sii joogto adigoo shaqeynaya hase yeeshee shardiga laga rabo ayaa wuxuu yahay in shardiga lagu xirayo uu yahay sugnaanta dhameystirka waxbarasho iyo caymiska caafimaad bimacna waxaad sugaysaa in dalkaas aad wax ku baratay isla markaana aad haysato caymiska caafimaadka fursadaha shaqo ee dalka Jarmalka ka banaan ayaa waxay yihiin waa kuwa horta heerkeedu uu aad u sareeyo iyagoo inta badan dadka wax ku bartay dalkan oo dalka Jarmalka lagu doorto dalalka ay ka soo jeedaan iyo qiimaha ay ku fadhido xirfadda uu qofku leeyahay halkan waxaad moodaa dalalkii hore ee aan soo sheegnay 6 ahaa dalka Jarmalku inuu ka duwan yahay waxa la eegayaa dalka aad ka soo jeedid sidoo kale waxa la eegayaa xirfadda qofku uu leeyahay mid labaad si aan laga gudbi karin ayaa waxay tahay xirfadda aad taqaano waxa ay ku goyn karto marka waa inaad maanka ku sii haysaa balse arrinka ku gaarka ah dalka Jarmalka ayaa wuxuu yahay in waxbarashadu ay tahay mid u eg inay bilaash tahay macna sida qofka loogu sahlayo loogu fududeynayo sida fudud ugu helayo ayaa waxay u eg tahay mid lacag la'aan ah taasoo ay walaalayaal kulansanayso fududeyn aad u weyn oo ah qofka joogitaankiisa dalka ee ku meel gaarka ahaa inuu u bedesho mid muddo dheer sii jira macna maadaama muddo xadidan waxbarashadu ay ahayd tusaale ahaan sanad oo kale 2 sano oo kale 8 bilood oo kale iyo wixii la mid ahaa ayaa inta aysan ka dhicin ayaa waxaad helaysaa fursad aad muddadii ku sii kororsato halkaana waxaan uga baxaynaa dalka Jarmalka dalka 8aadi ee 10 dawladood kamid ah ayaa wuxuu yahay dalka Holland muddada joogitaankeedu waa 1 sano kaliya hadaba fursadaha aad helayso ee dalkan hadii aad wax ku barataa waxay tahay walaalayaal inuu qofku gudbisado ama gudbisto codsiga fiisaha dalku joog ee loo yaqaano orientation year ama waxa loo yaqaan carabi ahaan sanatu at-tawjih waa sanadka hagida si uu shaqo u raadsado qof ardayga wax dalka wax ku barta ama uu u bilaabo ama uu u aasaasto mashruuc isaga u gaar ah waa fursadda dalkaas aad ku sii joogi karto sifada ardaynimo ama jaamacadeed weeye markii aad dhameysato hadaba fursadaha shaqo ee dalka Holland ka banaan ayaa waxay tahay waa mid horta marka koowaad filashadeedu walaalayaal ay aad u sareyso iyadoo heerka shaqaalaysiinta ardayda jaamacadaha ka baxa ay badhaafsan tahay tira ahaan 90%.
taasi maxay qalbiga kugu qaboojinaysaa haddiiba dalka Holland jaamacadaha ku yaala mid kamid aad ka baxdo oo aad shahaado ka qaadato inaad hore shaqo ka helayso iyadoo si gaar ah shaqooyinka looga helo dalka Holland ay kamid ka yihiin kuwa la xiriira tiknoolajiyada arrimaha deegaanka iyo beeraha kuwaas si gaar ah ay bad u tahay hadii aad la xiriirto waxyaalaha aad ku takhasustay inaad helayso arrinka ku gaarka ah ee dalka Holland ayaa wuxuu yahay walaalayaal in ay tahay dalka Holland deegaan aqooneed oo taageerta hal abuurka qofku uu leeyahay taasi waxay ka dhigan tahay hadii aad qof hal abuur leh aad tahay dalka Holland inuu yahay dalkii aad hal abuurkaaga ku soo bandhigi lahayd aadna uga miro dhalin lahayd halka waxaan uga baxayaa iyadana dalka 8aad dalka 9aad ee kamid ah dalalka qofkii wax ku barta uu sii joogi karo shaqana uu ka heli karo ayaa waxa kamid ah dalka Sweden muddada joogitaanka ee dalka Sweden waa 12 bilood ama waa 1 sano fursadaha hadaba aad halkaas ku sii joogi kartaa ayaa waxay tahay in dalku uu ku siinayo fiisa ku meel gaar ah si aad shaqo u raadsato ama aad u bilowdo mashruuc adiga ku gaar ah arrinkaas milicsiga mudan ayaa wuxuu yahay walaalayaal in ardaydaas ay kamid yihiin xitaa ardayda u dhashay dalka midowga Yurub macnaha ardayda dalalka Ingiriiska Jarmalka Holland ka timaada ee dalka Sweden taga iyo ardayda ka timaada Soomaaliya iyo Afrika iyo kulli dalalkaasi la mid bayeen bimacnaa tixgelin gaar ah oo la siinayo ma jirto iyadoo hadaba qasab ay ku tahay waliba inay ugu yaraan 2 semester ay wax ku bartaan ama ay noqdaan kuwa wax barashada ku qaatay gudaha dalka Sweden fiir waa lagu fududeeyay hadii 2 semester kaliya dalka muxuu ahaa Sweden aad wax ku baratay horaad shaqo ka helaysaa fursadaha shaqo ee dalka Sweden ka banaan maxay yihiin shaqooyinka hadaba ka banaan waxay hoos tagaan tiknoolajiyada tamarta dabiiciga ah iyo caafimaadka arrimaha ku gaarka ah dalka Sweden ayaa wuxuu yahay inay jiraan 2 la taliye oo jaamacadaha dalkaas u qaabilsan inay ku taageeraan isla markaana hagaan ardaydu sida ay u heli lahaayeen shaqooyinka hadii arday aad tahay Afrika ka tagay gaar ahaan Soomaaliya laakiin aan aqoon habka shaqooyinka loo raadsado meelaha laga helo sida loo baarbaaro sida muxuu ahaaye loo xoraansado hadii aad aqoon dalkan ayaa waxa lagu leeyahay Sweden wuxuu leeyahay la taliyaal jaamacadaha la shaqeeya oo ardayga jaamacadahooda ka baxa ku taageerayaba si uu shaqadaas u helo halkan waxaan uga baxaynaa dalka Sweden dalka 10aad ee 10 dawladood ee xaq ku siinaya hadii aad jaamacadahooda ka baxdo inaad shaqo hesho ayaa wuxuu yahay dalka Mareykanka hadaba muddada joogitaanka dalka Mareykanka waa 12 bilood iyadoo 24 bilood looga dhigo dadka haysta takhasuska waa si gaar ah ayaa iska fiiri dadka haysta takhasuska tiknoolajiyada engineerinka iyo xisaabaadka hadii aad saddexda mid kamid ah aad haysato shahaado takhasusi ah oo la xiriirta kuwaas 24 bilood bimacnaa 2 sano ayaad xaq u leedahay inaad joogto dalka Mareykanka hadaba fursadaha ee aad dalka Mareykanka ku joogi karto muxuu yahay dalka Mareykanka wuxuu siiyaa ardayda dalkaas wax ku barata ama ku dhamaysata fiisaha ku meel gaarka ah iyadoo loo sii marayo barnaamijka loo yaqaano optional practical training ama at-tadriib al-cilmi al-ikhtiyari waa tababarka cilmiyeed ee qofku uu madax bannaan yahay ayaa loo sii maraya hadaba shardiga laga rabo muxuu yahay shardiga laga rabo wuxuu yahay inaad dhamaysato 1 sano oo waxbarasho ama inaad waxbarashada ku dhamaysatay hay'ad waxbarasho laga aqoonsan yahay dalka Mareykanka macna waxa laga wadaa qasab ma aha inaad jaamacad ka baxday arday jaamacadeed inaad tahay qasab ma aha markaad Mareykanka joogto maxaa qasab ah oo maxaa macnaha fursad lagu siinayaa in ay jiraan goobo kale oo waxbarasho hadii aad ka baxday oo shahaadada aad haysatid laakiin dalka Mareykanka uu aqoonsan yahay ilaa 6 bilood ahaato waxa weeye shuruuda waad buuxisay intaas kadib fursadaha shaqo ee dalka Mareykanka laga helo waa kuwa horta fursadaheedu ay aad u badan yihiin kalena duwan yihiin waliba si gaar ah dhinaca tacliinta waxaase fursada si joogitaanka Mareykanka si badinaya ayaa wuxuu yahay walaalayaal inaad taageero ka heli karto goobta aad ka shaqeynayso
si aad u hesho fiisa kumeel gaar ah oo aad dalka kusii joogi karto. bimacnaa goobaad ka shaqaynaysay kadibna fiisihii dalku jooga kaa dhacay, isla goobtii aad ka shaqaynaysay, shirkadii aad u shaqaynaysay, waxdii aad u shaqaynaysay ayaaba recommendation ka bixinaysa sidii aad xaq ugu muxuu ahaay heli lahayd in fiisaha lagu siiyo. bimacnaa marka adigu kaliya lama kuma muxuu ahaay dagaalamaysid inaad hayso fiisihii dalka ku joogi lahayd, balse waxaa garab kugu siinaysa oo kula dadaalaysa isla goobtii aad ka shaqaynaysay. hase yeeshee waxaa ku gaarka ah Mareykanka ayaa isaguna wuxuu yahay joogitaankaagii kumeel gaarka ahaa inaad u bedelan karto mid xilli dheer aad ku sii joogto adigoo u sii maraya programka loo yaqaano Professional Work Visa ama تأشيرة العلم المهني وفيسها شقوينك رسمي نظام كاسات مريسا كدبنا محاد سمينيسا حق ويالنيسا إنا سي جوجتو هدبا طبعا كاس دولادود وحي أهايين طبعا كدولادود هدي آد واحد كبرتيد آد حق ويالنيسو إنا دل كاس كشاقيسو بمعنى آد سي جوجتو أو آد كشاقيساتو أما هدي آد قف حال أبور له تهي مشروع بالله بكرا تهي in aad muxuu ahaay dalkaas mashruuci aad ka bilaabanaysid guud ahaan nuxurka loo socdo uu yahay waxa barashada dalkaas hadii aad ku dhamayso inaad dalkaas aad sii joogayso aad ka baqaynin in dalkaas laga soo celiyo. hadaba waxaan rajaynayaa in ay fursad u tahay ardayda Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ka haysato markii ay jaamacadaha dalka ka baxaan inaysan helin goob laga shaqaysiyo iyadoo xaaladaha aad garanaysaan run ahaantii gaamuray ee dalka ka jira inay si gaar ah u saameeyeen dalkii talentiga lahaa, dadkii xirfadaha lahaa, dadkii jaamiciyiinta ahaa ee dalka wax ku soo beerin lahaa. taasi waa mid sidoo kale waxay ku sahlaysaa halkii aad lacago badan ku bixin lahaydeen barnaamijyo kale oo run ahaantii shul iyo shal ah, bimacnaa aan garanti ahayn inaad helaysaan in tan bedelkeeda idin noqoto oo sifo sharci aad martaan waxa la hubo aad lacag ku bixisaan si la hubana aad u helaysaan. waxaan ka wada hadaan si jilciyo halkii aad barnaamijyo kale oo 10,000 iyo 5,000 iyo wax la mid ah dad kale ay idinka idin noqon lahaayeen magafe qarsoon oo lacagtaadu aysan xataa aadan garan karin inaad helaysid in kale, xataa qaarkood ay say u sugayeen ay ka qoosteen aad u gali lahaydeen inay idinka qiimo badan tahay barnaamijyadan la hubo aad muxuu ahaay ku bixisaan sifa sharci dalkii aad ku tagtaan, sifa sharci aad ku joogtaan, sifa sharci ahna aad ku shaqaysataan adoona cidna aysan damiinka ahayn adiga oo dalkii aad tagaysay iyo adigu aad tiin dad si toos oo wada xariirayo cid khabaan ah oo idin dhaxayso adiga laaluush ka qaadanaysa ama dulmi kugu sameyn karta aysan jirin. gabagabadii marka waxaan leeyahay barnaamijyadaas ardayda Soomaaliyeed muhiim buu yahay. gala goobaha laga apply gareeyo, raadiya xogteeda, raadiya iskuna daya in aad indhaha kala furtaan oo aad ka xorowdaan in dad kale ay damiin idin ka noqdaan wax idinku aad heli kartaan. aad baad u mahadsantihiin.